arintana ma aha mideeda kalena in arin fiican waay in la isku keeno muwaadinkii ka tabanaya maamulka fiiriya muwaadinkan oo maamulka ka tabanaya in maxkamad inta la hor keeno la yiraahdo adigana difaac adigana isdifaac oo markaas taas maxay cadeynaysaa inaan markaas nahay ama tusaale una qaran ku dhisan sharci marka waxaan leeyahay maxkamadda sare waxaan rajeynayaa arrintaas inay ka weentowdo annagana cabashaan geysanay cabashadaasna ilaa ay hadda jawaab nalama siinin waxaa la isku dayay in la muddeeyo oo muddo mataqaanaa loo qabto dacwadii oo diboogisaa la qaadanaya laakiin annaga waxaan leenahay waa sharci darro qof kasta oo aqoon-yahana oo sharci yaqaan ahna challenge aan la samaynaynaa waana ogolnahay in laga jawaabo cabashada aan keensanay waxaan guddoomiyaha weydiisanaynaa inuu ka jawaabo uu yidhaahdo waxaasi waa sax waxaasaa u sheegaysaan waaye ama ma aha inuu annaga nagu dhaha markaa kadib ayaan hore u socon karnaa laakiin annaga waxaan aaminsanahay inay sharci darro aad u أنا واحد بدكم مدراية ممكن تعطينا عليكم حسب الشيء وحنا معنا الحين أنا ذيك الصباح هاي معمولة وأي هو الشرع كيس ليسن ومعقول الشرع الواقع أكيد إذا أنا كنت سنين وأنا ديفينيتيفا وتصبح معمولة على الشرع على كرا محكمة السر مركب محكمة السر دعوة الجليس وحليلها ديبو ABC مركب ديبو ABC تاس حكم كتصبحه dib u eegis laga ma qaadan karo wuxuu ku xusan yahay qodobka 231 xeerka habka madaniga Soomaaliyeed ayaa si cad uga hadlay xukunnada ka soo baxo dacwadaha dib u eegista laga ma qaadan karo dib u eegis xukunkaas sharcigu ku xusan yahay marka waxaan u sheegaynaa kaliya cid alla waxaan u sheegaynaa maxaa la yiraahdaa maxkamadda sare inkastoo ayada ay hadda hay'adda ugu sareysay garsoorka inay tahay inay wax walba og tahay waxaan rajaynaynaa in iyadoo oo ilaalinaysa maadaama maxaa la yiraahdaa danaha muwaadiniinteena inay arrintaas بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ما هدي سؤال إن المحكمة إنها حكومة حقنا ونسكتي إن لغد تصير حقوق أن سوقت بالنيت خمسة سنة قبل إن إذا كمان كبرت هذا الجو خاصة بشير بشير نور المعلم إن إسكود أيام إن حقوق ولا لها يدود سيدا ولها بنك كان وقت شالن جرينا شقاء الربان هينا من الجبهة موضع لهم ولها أو حركة وقادن أفوليين هاسكت عارفين حقوق الضرورة شغالها أبيز كل سنة إلها ما هديسها حقوق يا صباحي وعلينا حقوق أصحابه وهي شرع وحكى هذين علينا ووجد المنطقة أبعدنا ولتاجنا تذكر كلها تجنا وعندك دد بنتي دد مقل حقوق راسنا وحواي حقوق ريه في شخصية أن بقي لا قبلي كودي فبراير كل إسرائيل بقول له طريقان مرة الحقوق عندنا وليه إداروا أها هالشيء كذا طريقان حكى أنا ورقته يكون قرنته إنه قولها إيجار هاي ورقته محكمة طريقان وحاكي قرن إن قولها هاي كريسو أو يالو rent to own annaga ingiriiska ku soo bedelay maadaama dad Talyaani yaqaan ee waddanka hadda ku yar yihiin maxkamad ku taalo magaalada Torino oo Talyaaniga ayaan ka soo tasdiiqin wuxuu ku andacoodo raadiyaha ka sheegay TV-ga af Soomaaliya ku tarjumay taas waxa way xaqiiqo maaha runta kama sheegin af Soomaaliya waxba uma soo tarjumin hadduu wax fahmaayo waxaa loo baahan yahay waxa ugu sahlan waa xisaab warqadii uu keeno oo walaalkii Allah naxariistay Alma Ibrahim oo 870 looga jaray haddii saddex loo qabay 3 bilood waxa ka soo baxayso 290 shilin in bil kasta diiri jiray waxaan heynaa warqad uu soo qalgalay qaanku uu leeyahay 190 laga qaali jiray marka 870 cid kasto dhalinyarada ama ciyaalka hadday qaybiyaan saddex u qaybiyaan 290 ka soo baxay marka waxaan leeyahay nin dhan oo qalqaan guud ah inuusan xisaabna saas u sameyn karin حقيقة كجرتنا ورنت وسنكشي هل دوكومنتي أو صحة أو أنا ليج نواها موسمكين وراقها هذا عن أولي بيو يونيفرسال وحاكو جيران دودي سيجي الواقع هذا الشن إلى الله بيلا باتن بيتا أو ستيب باي ستيب الواقع دوكومنتي عن حرب إغني محكمة ده أو الشن إلى باتن دوكومنتي هل مع الشن إلى باتن دوكومنتي عشان هل ورقة دوكيني
marka hadduu isleeyahay maxkamadda sare ayaa abiis ku samaynaysa shacabkan oo dowladda u eexanaysa anaga ma aaminsanin waxaan aaminsanahay maxkamadda inaysan idin u eexanin laakiin hadda go-aankii markay soo saareen maxkamadda sare waxaa loo baahan yahay inay maaragtay ku adkaystaan xukunkii ay soo saareen laakiin in laga saaro siduu u yidhi qareenaheena wax siyaasadeed anaga siyaasad ma raadinin sharciyan su-aal meeshan waxaan u taagannahay sharciga in la dhaqo hadduu sharciga naga qaadayo sharciga u hoggaansanana laakiin bankiga ha u hoggaansamo waxaa jira sharciga qof kasta oo ama dariiqaan guud ah ama bankiga maamulkiisa ka mid ah waktigii ay rabaan telefishan waa la soo fursan shacabka dukumentii aan keenin haddii sax ahayn هذه في النطوق هذه maamul oo weliba jowr warqadaas soo qarabishay jowr ayay ahayd oo maryana ay ku raacday oo ilaa iyo hadda xataa shaqaalihii guryaha bankiga deganaa abiis lagu samaynayo oo guryihii lagu dhibayo masaajid oo meesha nooga dhisan xataa waxaa naloo diiday gabdhihii labadii qol aan gabdhaha qur-aanka ku baraynay maryana haysto furayaasha wiilashii gabdhihii meelaa loogu wada qoraa qur-aanka gabdhihii wiil in laisku dhaajiro diinteena ma qabto labadii qolna waa bannaan tahay marka waxaan u soo jeedinaynaa ama dowlad ha noqoto ama ciddii ay khusayso ama wasaaradda cadaaladda inay maaragtay furayaashaas nooga soo qaadaan oo ilmihii qur-aanka la barayay ay saas ku noqdaan masaajidkaasna inuu noqdo masaajid baytullaahi waaye sida uu haagaysan yahayna bashiirna waxba kuma laha maryana waxba kuma laha waa la soo arki karaa kaarbetka ugu dambeeyey anaa waxaan ka bedelay sanadka hore shilin ay leeyihin maysa ka mid marka meel saas loo maamulayay 25 sano oo burburka uu dhacay in maanta ayaga ay yimaadaan ay waxay rabaan ka sameeyaan ani ma aaminsan inay sameyn karaan sharciga hawda ka weyn labadoodana waxaan u sheegayaa ilaahay ka cabsado salaamu calaykum waraxmatullahi